بسم الله الرحمن الرحيم واسطنبول عاصمة التجارة ودنك تركيا وحان قرب تاغناها عبد الوهاب مراد ليلي oo ka socda shirkadda Dunya Berlig oo mashruuc weyn ka fulinaysa magaalada Ankara mashruucaas oo magaciisa leeyahay Northgate Ankara iyo sidoo kale fadiilada Sheikh Maxamuud Sheikh Xasan Abu Talha su'aasha koobaad rabo inaan ku weydiiyo Cabdi Wahaab waxa weeye mashruuca Northgate Ankara bulshada ma u qeexi kartaa mashruucan waa mashruuc shirkadeed shirkadna sideedaba waxa weeyaan dad ba isla leh marka dadka iska leh anagoo kamid ah Soomaaliya ba ku jirno mashruucanna waxa weeyaan waa mashruuc aan dadkaas walaalaha ah ee Turkida aan wada sameynayno shirkad ahaan aan wada leenahay shirkadda waxa aan uga fulinayna meeshan wax kala ma aha waa mashruuc weyn oo ballaaran oo ku haboon maanta dhaqaalaha iyo nidaamka wadankan Turkiga ah mashruucan waxa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan cid kasto oo ma aragtay mashruucan maalgashan karta Soomaali baad ku hadlaysaa Soomaali baadna tahay meesha aan joognana waa Turkiya yaa iska leh waa samaxay xeerarka u yaala ee u dhaxeeya shirkadda iyo qofka maalgashanaya waa su'aal aad u fiican su'aashan marka waxa weeyaan ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan muddada ugu dambeysay waxaan arkaynay anaga muddo dheer baan wadankan joognaa ama wadankii kale aanu deegaan ahaan aanu ka nimid oo ahaa Jarmalka intii aan deganayn muddo badan baan la soconay wadankan oo aanu imaanaynay shirkadna ku lahayn intii ugu dambeysay waxaan aragnaa Soomaaliya inay ku soo qulqulayso wadankan oo ay waliba qurbaha fog ka imaanayso ama North America ama wadamadan Westernka ay ka imaanayaan ama Soomaaliyaba marka waxa faa'iido ugu jirta mashruucan waa koow waxa weeyaan deegaankii oo ah dhinac ganacsi oo ah inuu qofka intuu lacag gashada lacag uga soo baxayso iyo inuu aha deegaankii oo ah meeshuu degi lahaa in uu la xiriiro labadaba faa'iido ugu jirta shirkadan iyo anaga hawshan aan wadno marka qofka faa'iidadiisu way badan tahay aad baad u mahadsan tahay Cabdi Wahaab maxaad ku doorateen Turkiya mashaariic ganacsi oo iyo maalgashi oo baaxad leh ka socdo geyigeennii Soomaaliya Turkiya maxaad ku doorateen Turkiga kaliya maana dooranin oo dadku markuu ganacsanayo adduunka dhow furan yahay wadanka Soomaaliyana waa wadnahanagi wana meesha aan rabnay inaanu mustaqbalka aanu maalgashano oo aanu aadno laakiin waqtigan xaadirka ah wadankani fursad waxa ka jirto fursad dahabi ah sanadka ugu dambeeyay 10 milyan oo dad ayaa yimid oo muslimiin ah wadankan oo dhaqaalahoodii la soo galay oo soo dhaqaala gashaday marka anagu waxaan uga fulinaynaa fursadda dhaqaale ee maanta wadanka ka jirto iyo mashruucan aad u ballaaran oo 3 milyaar ku baxayo meesha uu maanta ka fuli kara ayaa Turkiga ah aqoontii aan u lahayn oo shirkadihii dhismaha ma ahaato ama shirkadihii maamulka ahaato ee aan lahayn waxaan isku waafajinay inaan kan weyn halka ka fuli karo laakiin mashaariic kale way jirtaa oo wada hadallo noo socdaan oo aan ka fulinayno geeska Afrika Soomaalida degto aad baad u mahadsan tahay dagaalkan dhaqaale ee lagula jiro wadanka Turkiya ee ay wadaan dawlado gobolka degan iyo dawlado caalami ahba saameyn intee dhan buu ku leeyahay guud ahaan shirkadaha wadankan ka howlgala gaar ahaan shirkadiina dhaqaalaha siyaasadeed ee ka jiray meeshan hadda wuxuu isku soo biyashubtay in dalkii Turkiga la ogaaday in aanan arinta lagu sii wadi karin waxaan ka garan kartaa maanta oo joogno in dollarkii 5 ku sii socdo oo aad u sii socdo marka arintaasi markii horena waxay eedaarin siyaasadeed oo meediyanka la galiyay markii oo liiraha kaliya ku koobneed oo dhaqaalaha ku koobneed waayo haddaad u fiirsatiin dhaqaalaha wadanka uu kacayay liirahana waa la dagaalamayay marka arintii way isbedeshay waxna dhibaato kuma hayso bal wadanka investmentiga la gashanayo oo ay dawladii dabcisay markay aragtay inay arintaasi sida uga ay tahay in istiraatiijiyad sameeyso arintii ay sameysay soo dhaweynta aha ay shirkadii u yeedhay ayaa wadanka dhaqaalihiisa kiciyo shirkadaha aad u badan maalgashanaya hadda waqtigan xaadirka aad baad u mahadsantahay Cabdi Wahaab dadka ku dhageysanaya wax macaan oo qurux badan baad u sheegtay haddaba ma u faahfaahin kartaa bulshada sida ugu fiican ee uu qofku u maalgashan karo ama uu idinla soo xiriiri karo mashruucan uga qayb qaadan karo mashruucan aan wadno oo dhismo ah waxa weeyaan waa mashruuc loogu talagalay in maalgashi lagu sameeyo hab saami ah saamiga marka la sameynayo waxa weeyaan waa 3500 oo euro weeye lacagta saamiga ee qofka u gashanay shirkadan 3500 waxay faa'iido u keenayaa muddada la dhameynayo oo ah 27 bilood ka bacdi marka dhameyno oo aan gadno 4550 ayuu saamigan keenayaa saamigaasi uu gatay marba waxay ku xirantay intii saami uu gatay lacagtu ka leeyahay waa 130% way waxa loo yaqaano marka arintaasi waa arin badan lamana helo laakiin waxa lagu helo waxa weeyaan kaliya shirkadda oo lagu yaqaano in ay waxay dhistaba ay sugto
iyo ta kale oo ah maanta oo uu jaaniska jiro ku saabsan mashaariicda noocan oo kale ah ay ballaaran yihiin annagana aanu kasta dadka macaamiishaanada ee dalbanaya guryahan soo dalbaday ay diyaar yihiin inay gataan su-aashan waxaan weydiinayaa sheekh abu talxa inkastoon su-aalo kale u hayo laakiin isla halkan ay calaaqa la leedahay dad badan baa sas ka qaba dadkan inta lacagaha laga aruuriyo la yidhaahdo faa'iidooyin badan baad helaysaan kadibna meel ay jaan iyo cirib dhigeen la waayayo marka maadaama sheekh abu talxa aan maqlay in aad meesha adigu tagtay ood soo aragtay waa maxay ama maxaad ka taqaa nimankan iyaga ka og tahay damaanada ay bixinayaanse waa maxay alxamdulilah horta aad baan u dhowahay marka koowaad waana ku faraxsanahay interviewgan sheekh cabdalla xambali uu qaadayo ee ku saabsan mashruucan asaga ah haddii aan su-aasha si toosa uga jawaabo ma geli doono tafaasiisha shirkadihii hore iyo waxaas hadda ma sii geli doono laakiin waxaan rabaa inaan dhaho mashruucan waan tegey lugahaygaana aan ku tegey indhahaygana waan ku soo arkay walaalahana si shaksi ah ayaan runtii u aqaanaa waxaan si dhaba u akhristay maxaa la yidhahdaa waxa u yaala oo qoraal ayaan si dhaba aan u akhristay shirar fara badan oo aanu ka qayb galnay sidaa daraaddeed waxaan dhihi karaa runtii mashruucani waa mashruuc qiimo fara badan aniga ila leh soomaalidana qiimo fara badan runtii mashruucan ayuu u leeyahay qaabka ay mataqaanaa usoo bandhigayaanna ama ay faa'iidada usoo bandhigayaanna waa qaab wanaagsan waxaan isleeyahay khibrado badan bay ka faa'iidaysteen oo hadda su-aasha dhinacaad iga weydiisay shirkado hore oo adduunka soo maray wixii ay ku daciifeen oo kale ama lagaga aamin baxay oo kale ay marka ay ka faa'iidaysteen marka waxaan leeyahay waa niman aan ku kalsoonnahay diintoodan xataa ku kalsoonnahay akhlaaqdooda ayaanu ku kalsoonnahay dhaqankooda ayaanu ku kalsoonnahay insha allahu tacala dee la yidhahdo waxqabadkoodana waxaanu isleenahay waa waxqabad midho dhal ah biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaana marag iyo makhraati ka noqon doona insha allah waktiga haddii la isku simo cabdiwahaab baan mar kale ku soo noqonayaahe ma jiraan sheekh abu talxa warkiisa waa cad yahay waanu idin taskiyeeyey waana sheekh caan ahoo bulshada in badan oo bulshada soomaaliyeed ka mid ay si wanaagsan u taqaano allaha noo dhowro isaga iyo culimmada inteeda kaleba ma jiraan dadyow kale oo aad mashruucan kala tashateen ama aad u bandhigteen haa way jiraan adaaba ka midaba sheekh cabdulaahow oo aan ku geynay xarunta noogu soo booqday oo arkay labadiinnana waxaad nagaga filan tihiin walaalihii kale aad u gudbiseen iyo maaragtay aad la qaybsateen fikirka way jiraan dad badan oo ganacsadayaala oo aan kulan la yeelanay oo iyagana oo Soomaali ah laakiin haddaan arintaasi in yar ku daro fikirkan ganacsiga anaga intiisa badani saad arkayseen wuxuu ku koobnaa maaragtay qoomiyada kale oo aan Soomaali ahayn yu ahaan jiray talada aadna siiseen markaad nagu soo booqateen xaruntaanadii ee aadka uga hesheen habkan u socdo idinkoo mar kastaba matalo ummadda Soomaaliyeed oo khayrkeeda ka shaqeeyo aad waana badan naga siiseen arintaasi inaan dadkii Soomaaliyeed u bandhigno oo aan ogaano arintaas waxay keentay in aan idin soo bandhignay oo aad ku qanacdeen idinkii mar haddaad ku qanacdeen dad badan oo idinku sii qanacsanaan way inay ku qanceen baan aaminsanahay sidoo sheekha sheegana de waqtiga hadii la isu dhaafo insha Allah waa la gaari doonaa waqti insha Allah aad arintaasi aad garatiin qofkii doonayo inuu idin la soo xiriiro xageedan kala soo xiriiraya qofkii doonayo inuu la soo xiriiro numberka shaashada hadda ku qoran ayuu nagala soo xiriirayaa oo ah wax kasta meel kasta oo Viber-kii baa kamid ah WhatsApp-kii baa kamid ah Facebook-yadanadii baa kamid ah website-dadanadii waxaas oo dhan shaashada ay ka soo baxayaan halkaasna lagala soo xiriiri karaa barakallahu fiik aad baad mahadsantahay sheekh maxamuud dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ku soo qulqulay wadankan Turkiga kolba waxaan u maleynayaa waa wax un bay ka arkeen maslaxadooda marka maxaad u maleynaysaa Soomaalidu maxay Turkiga u timaadaa horta su-aasha intaan ka jawaabin ana waxay ila tahay in aan wariinimada sheekha intaan ka soo bedelo aan anigu su-aashaas si khaas u weydiiyo aan ku dhaho sheekh Xambali adin laftaa meesha waa tagtay indhahagaad ku soo aragtay bal waxaan doonayaa laftaadu waxa aad ka aaminsan tahay shirkaddan inaad bulshada u sharaxdo dadka imaqlaya waxaan u sheegayaa inaan ku taageersanahay intii uu sheekh maxamuud sheegay la nuzaki ala allahi ahadan ilaahi baa qaybka og ilaahi baa qofka khaatumadiisa og laakiin in dadkan walaalaha ah ee Soomaalida iyo Turkidina meesha mas'uuliyiinta ka ahayd ama hantiilayaasha ahaydna waan la kulanay dad dayaanadooda iyo aqoontooda iyo akhlaaqdoodaba aan ku kalsoonahay weeye marka waxaan qabaa ninkii maanta wax u dhiibta in ay
in sha allahu faa'iido wanaagsan ay ka heli doonaan biidni illahi fursadna ay u tahay isla markaana xoolahoodii ay meel ammaano ah ay ku jirto laakiin sheekh iga jawaab su-aashaydii baaraka allahu fiik soomaalida kusoo qulqulaysa turkiga soomaalidu waa dad asal ahaan iska reer guuraa hase yeeshee haddanana meeshay wax ku og yihiin bay yimaadaan sax marka inay kusoo qulqulayaan hadda muhiimaddu ima aha laakiin siday uga faa'iidaysan lahaayeen ayaan qabaa in su-aashu ay tahay oo su-aasha sida loo dhigay ay noqoto dadka kusoo qulqulaya waddankan turkiga sidee uga faa'iidaysan karaan waxyaabahay uga faa'iidaysan karaan waxaa ka mid ah waddankan jaanisyo fara badan baa jira oo hadda ay shirkadan ka mid tahay oo maalgashiga uu ka mid yahay wixii kale u yimaadaan oo diintooda iyo akhlaaqdooda iyo dhaqankoodu waa shakhsi qof walba iyo shakhsigiisa wey laakiin waxaan ku dhiirigelinayaa ku boorinayaa qof kastoo yimaado oo waddanka yimaada inuu wax ka qabsado oo maal gashado oo sida shirkadan oo kale oo intuu wax ku darsado oo mustaqbalkiisa si uu ugu ahayo daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen cabdiwahaab miraad layli oo ka socday shirkadda dunya berlig iyo fadiilatu asheekh sheekh maxamuud sheekh xasan abu talxa aad iyo aad baad mahadsantihiin jazakum allahu khayran